bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa channelka wararka ee Somali News ku soo dhawaada timinteena maalinimo qodobada ugu waaweyn waxa qaybka wasiirka wasaaradda amniga dawladda federaalka ee Soomaaliya oo amar degdeg ah ku bixiyay in sida ugu dhaqsiyaha badan xabsiga looga soo daayo Sheekh Mukhtaar Roobow sababtu maxay tahay halkan ayaan kugu soo gudbi doonaa wararkii ugu dambeeyay khilaafka madaxweyne Farmaajo badbaado qaran oo Muqdisho gilgishay iyo xaaladaha guud ee magaalada ayaynu ku dul istaagi doonaa magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah maamulka Jubbaland oo ay ka bilaabato doorashada 6 kursi oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka ee deegaan doorashadooda tahay Jubbaland beesha caalamka oo ka hadashay xaaladda siyaasadeed ee dalka degdegana u dirtay madaxda haatan khilaafka ku dhaxeeyo iyo wasiirka wasaaradda gaashaaniga dawladda federaalka ee Soomaaliya degdeg u diray ciidamada qalabka sida ay ka howlgala dalka qodobada iyo qodobo kale ayaynu ku faahfaahin doonaa tabinteena u diyaar garooba daawadayaal mar kale kulan wacan oo wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan qodobada aad maqasheen iyo kuwa kale oo aynu faahfaahintooda guda galno haddii aynu ku bilowno Cabdullaahi Maxamed Nuur wasiirka amniga dawladda Soomaaliya ayaa agaasimaha ku meel gaarka NISA Yaasiin Faray u qabtay 48 saac inuu ku soo gudbiyo warbixin la xiriirta Mukhtaar Roobow iyo sababta uu xiran yahay wasiirka amniga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa soo saaray dalab culus oo la xiriira xariga Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Amaamusoor oo wali xabsi ugu jira dawladda federaalka ee Soomaaliya si gaar ah ugu xiran magaalada Muqdisho Cabdullaahi Maxamed Nuur wasiirka wasaaradda amniga ayaa faray kusimaha hay'adda NISA Yaasiin Faray inuu soo gudbiyo warbixin dhameystiran oo la xiriirta xaaladda Sheekh Mukhtaar Roobow oo waayihii dambe laga warlaa wasiirka wasaaradda amniga ayaa 48 saac hay'adda nabad sugidda u qabtay inay uga soo jawaabto dalabkiisa isagoo inta ku daray in cabashada ka soo gaartay eheladiisa Amaamusoor sida ugu dhaqsiyaha badan looga jawaabayo sidoo kale waxa uu sheegay inay dalbanayaan cadaalad maadaama uu muddo dheer u xiran yahay sheekha oo lagu soo qabtay magaalada Baydhabo xilli uu musharax madaxweyne u ahaa Koonfur Galbeed waxaan farayaa kusimaha hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka inuu ku soo gudbiyo warbixin dhameystiran oo la xiriirta xariga Mukhtaar Roobow Cali Amaamusoor ayaa lagu yiri warqad ka soo baxda xafiiska wasaaradda amniga ee dawladda Soomaaliya Sheekh Mukhtaar Roobow ayaa tan iyo 2019 kadib markii magaalada Baydhabo musharax xilliga u ahaa qabashada xilka madaxtinimo ee Koonfur Galbeed waxa ka soo qabtay ciidamada Itoobiyaan ah kadibna u soo gudbiyay magaalada Muqdisho tan iyo xilligaasna ku xiran dalabkan xasaasiga ee ka soo baxay wasiirka amniga gudaha ayaa ku soo aadaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyay looga deerinaya xaaladda caafimaad ee Sheekh Mukhtaar Roobow si kastaba xilliga uu soo baxay go'aamkan ayaa ku soo aadaya iyadoo lafta gareen uu ka hor yimid ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta isla markaana oo la saftay madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo arrintan ayaa si abuuraysa xiisad kale maadaama laga cabsi qabay in uu ra'iisul wasaare Rooble awoodda saaro sidii uu soo dayn lahaa Sheekh Mukhtaar Roobow oo muddo badanba u xiran dawladda federaalka ee Soomaaliya Sheekh Mukhtaar Roobow horey waxa uga mid ahaa jiray hogaamiyaasha Al-Shabaab balse kadib uu ka soo baxay waxa uu isku soo dhiibay dawladda federaalka ee Soomaaliya caafis ay dawladda u fidisay ayuu isugu sharaxay kursiga ugu sareeya ee madaxtinimo xilliga doorashadii Cabdicasiis lafta garan uu ku guuleystay balse xabsi ayuu dawladda u soo taxaabtay waxaana ilaa hadda aysan jirin dambi lagu soo oogay oo ka baxsan inuu Al-Shabaab ka mid ahaa jiray balse uu dawladda isku soo dhiibay warqadan ka soo baxda xafiiska wasiirka amniga lama oga sidoo uga soo jawaabi doono Yaasiin Faray kusimaha hay'adda NISA ana xildhibaan dhawaan ku soo baxay kuraasta mid ka mid ah deegaan doorashadooda ay tahay Galmudug oo muran badan dhalisay wararkii ugu dambeeyay haddii ayna aadna magaalada Muqdisho waxaa xalay ilaa shalay ka jira guluf xoogan magaalada Muqdisho iyadoona ciidamada ugu badnaa xalay caasimada dalka ay soo galeen kuwaas oo ku soo biiraya ciidanka badbaado qaran kulamo kala duwan ayaa saraakiisha ciidamada ugu sareysa xalay la qaateen sida ayna xogta ku helnay madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble dhinacyadan ayaa ciidamada ay la kala kulmeen saraakiishooda waxay kala hadleen midba aragtida u goonida ah rasiida ayna xogta ku helnay madaxweyne Farmaajo ayaa la kulmay ciidamo ka socday xooga dalka saraakiil hogaaminaysay kuwaas oo kala hadla xaaladda guud ee dalka balse arrintan ayaa ku saadeysay xilli ra'iisul wasaare Rooble uu sheegay in talada guud ee amniga dalka la wareegay isla markaana aysan jirin askari ka amar qaadan kara ama war ka soo baxay Farmaajo aqbali karo haddii taasi dhacdana uu tilaabo sharciga waafaqsan ka qaadi doono xaaladda guud ee magaalada Muqdisho oo maanta ah mid degan balse waxa wali taagan cabsida laga qabo in ciidamada dhinacyada siyaasadda kala taabacsan inuu halkaas dagaal ku dhaxmaro ciidanka badbaado qaran oo horey abaabul xoogan u sameeyay ilaa shalay xalay xaafado ka tirsan degmooyinka howlwadaag iyo sidoo kale warta nabad oo u dhowdahay madaxtooyada Villa Soomaaliya dhanka kale jidadka soo gala madaxtooyada waxay u xiran yihiin
ciidamo taabacsan filla Soomaaliya kuwaas oo dagaal difaac uga jira lagu soo qaado tan iyo markii uu madaxweynaha madaxweynaha dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu isku dayay inuu wiiqaha awoodda ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta xilliga uu gacanta ku haya arrimaha doorashooyinka amniga dalka ayaa waxa bilowday abaabul cusub ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa tiro dhowr jeer uga gaabsaday horay in dagaal siyaasadeed oo adag la galo Farmaajo ayaa xilligan u muuqda mid go'aansaday inuu si toos u wajaho isagoona ugu yeeray madaxweynihii hore maadaama uu dhamaaday madaxweynaha sharciga ahaa sidoo kale xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa laga fujiyay sawirka madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday taas oo muujinaysa heerka ay gaartay carad uu Rooble u qabo Farmaajo khilaafka Farmaajo iyo Rooble ayaa isku bedelay isku awood sheegasho ciidan waxaana Rooble ku gacan siinaya midowga musharaxiinta oo horey uga soo horjeeday madaxweyne Farmaajo ku eedeynayeen inuu wado afgambe iyo sidoo kale muddo kororsi kale oo sharci ahayn xulafaysiga Rooble iyo mucaaradka ayaa waxa halis weyn ku yahay sii joogista Farmaajo ee filada waxaana bilowday abaabul cusub oo dib loogu nooleynayo ciidamadii badbaado qaran saraakiisha ciidamada badbaado qaran oo shir jireed ku qabtay magaalada Muqdisho meel u dhow madaxtooyada Soomaaliya ayaa ku goodiyay inay soo qabanayaan madaxweynaha madaxweynaha dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sargaal u hadlaya ciidanka badbaado qaran ayaana ka codsaday ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta inuu ka wareego muddo dambe u qaban Farmaajo si ay u soo qabtaan waa sida hadalka u dhageene arrinta Farmaajo iyo Rooble khilaafka u dhaxeeya ayaa mugdi weyn gelinaysa doorashadii dalka ka socotay horey mugdi badan u hareeyay waxaana muuqata haddii sida ugu dhaqsiyaha badan aan wada hadal loo bedelin gulufka siyaasadeed ee haatan Muqdisho ka taagan in dhinacyada iska soo horjeeda ee siyaasadda ku kala aragtida duwan oo ciidamada kala taabacsan ay iska hor imaan doonaan markaana magaalada Kismaayo guddiga doorashooyinka heer federaal ee dowlad goboleedyada Jubbaland ayaa waxa ay maanta halkaasi ku qabanayaan doorashada 6 kursi oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka ee deegaan doorashadooda tahay maamulka Jubbaland 6 kursi oo in ka badan 12 musharax ay ku tartamayaan ayaa maanta ka socota doorashadooda magaalada Kismaayo waxaana goobjoog ka ah guddiyo ka socda kuwa heerarka dowlad goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya doorashooyinka maamulka Jubbaland hore ayuu ugu dhawaaqay doorashada golaha shacabka uu bilaabi doono taas oo maanta ka socota magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose guddiga ayaa shaacin maalmaha soo socda sidoo kale kuraasta dhiman ee deegaan doorashadooda tahay magaalada Kismaayo inay qaban doonaan arrintan ee doorashada ka socota Jubbaland ayaa ku soo aadaysa xilli muran badan oo hareeyay doorashada dalka ka socota khilaaf xoogan oo soo kala dhaxgalay madaxweynaha madaxweynaha dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta amniga guud ee magaalada Kismaayo ayaa aad loo adkeeyay si gaar ah xarunta ka socota doorashooyinka iyadoona lagu arkayo ciidamo dheeraad oo sugayo goobta doorashada ka dhacayso beesha caalamka ayaa waxay ka codsatay madaxda dowladda Soomaaliya inay dejiyaan xiisadaha xilligan siyaasadeed ee ka kacsan dalka saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saareen waxay ku sheegeen inay aad uga walaacsan yihiin si dhow noola socdaan xaaladaha ka taagan dalka kuwaas oo ku saabsan siyaasadda iska soo horjeeda ee dalka xilligan ka taagan ee arrimaha doorashooyinka sababayaan waxaan madaxda Soomaalida ugu baaqanaa in danta dalka ay ka hormariyaan wax walba ayagoo dejinaya xiisadaha siyaasadeed ee kacsan iyo in ay ka hortagaan wax kasta oo dhibaato xoogan ay ka soo gaari karto dalkan saaxiibada beesha caalamka waxay marar badan ku celcelinayaan walaacna ka qabaan xiisada isu soo tarayso xilligan ka dhex taagan madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble beesha caalamka ayaa sidoo kale qoraalkooda ku sheegtay in shirka golaha wada tashiga qaranka ee dhawaan uu ku baaqay ra'iisul wasaare Rooble sida ugu dhaqsiyaha badan loo qabtay qoraalkan oo si wada jir u soo saareen howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM Belgiumka Canada Masar Ethiopia midowga Europe Finland Faransiiska Jarmalka Urur goboleedka IGAD Talyaaniga Japan Kenya Holland Norway Sudan Sweden Uganda boqortooyada midowday Britain dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobay waxayna si wada jir ugu baaqeen dhinacyada siyaasadda Soomaaliya in la dejiyo xaaladda dalka ee haatan kacsan isla markaana wax kasta oo taagan oo caqabada wada hadal lagu dhameeyo dalkana aan loo horseedin colaado iyo sidoo kale xiisad siyaasadeed oo saameyn ku yeesha doorashada dalka ka socotay dowladda Mareykanka ayaa si gaar ah u sheegtay in cid kasta oo xilligan caqabad ku ah arrimaha Soomaaliya iyo xasiloonideeda ay tilaabo adag ka qaadi doonto waxayna garab u muujiyeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble oo sheegeen inuu asaga arrimaha doorashooyinka mas'uul ka yahay sida ugu dhaqsiyaha badan u dardargeliyo inta ayaana ku soo gabagabeynayna barnaamij wareedkan aad kala socoteen channelka wararka ee Somali News fadlan muuqaalkan hadduu ku soo gaara si share gareeyo saaxiibadaada la sii wadaag wixii aragtidaada ahna qaybta hoose nagula wadaag mahadsanidin